waan idin salaamo dhammaan saaxiibada ku xiran janaalkeena aad ayaan idinkaga mahadcelinaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaaladan bartaan soo dhigo soo dhawaada saaxiibayaal. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago taranoleedka jilaaga caanka ah ee lagu magacaabo Atharfaa Murali. Jilaagan wuxuu ka mid yahay jilayaasha caanka ka ah dhankaasi koonfurta Hindiya. Haddaba waxaan idinla wadaagi doonaa xog iyo xaqiiqooyin u gaara jilaagan, balse intaan u gudagelin muuqaalkayga waxaan ka codsanaynaa janaalka soo biirto oo subscribe saarto. Haddii uu muuqaalku cajab geliyo laag inoo saar, wixii ra'yi aad qabto commentiga hoos inoogu reeb, sii share gareey oo la wadaaga asxaabtaada. soo dhawaada saaxiibayaal. waa tahay saaxiibayaal, jilaagan lagu magacaabo Atharfaa Murali waa mid ka mid ah aktarada da'da yar ee dhankaasi koonfurta Hindiya caanka ka ah. Markaan eegno jilaagan waxa uu dhashay 7 May sanadii 1989. da'diisu hadda waxa weeyaan 22 jir ama 32 sano ayuu jiraa. waxa uuna ku dhashay magaalada Chennai ee gobolka Tamil Nadu ee gudaha dalka Hindiya. Jilaagan aabihii waxaa lagu magacaabo Murali halka hooyadii lagu magacaabo Shuaba. waxaa la dhalatay gabar iyo wiil kuwa oo lagu kala magacaabo Kavi Murali iyo sidoo kale Akash Murali. Jilaagan iyo waxbarashadiisa markaan eegnana waxa uu ka baxay college lagu magacaabo St Majel Academic oo ku yaalo magaalada Chennai ee gobolka Tamil Nadu. Isla magaaladaasi ayuu kaga galay dhankaasi ama uu kaga baxay heerka jaamacadeed. waxa uuna ka baxay jaamacad lagu magacaabo Satyamaba University oo ku taala gobolka magaalada Chennai ee gobolka Tamil Nadu. Jilaagani markaan eegno dhanka aflaam jilista waxa uu ku soo biiray sanadii 2010. filimkiisii ugu horeeyayna jilaagani waxaa lagu magacaabaa Banana Kathadi, waxaana la daawaday sanadii 2010. waana filim aan dhahay saaxiibayaal Tamil ah. jilaagan markaan eegno waxyaabaha uu xiiseeyo wuxuu aad u jecel yahay in uu dalxiiso, sidoo kale waxa uu aad u xiiseeyaa ciyaarista kubadda cagta. waxaan la sheegay inta ugu badan in ciyaaraha ninkani uu maalmaha nasiinada uu jecel yahay inuu saaxiibadiisa la ciyaaro ciyaaraha kubadda cagta. markaan eegno aktarkan iyo dadyooga uu ka taageero dhankaasi aflaamta ama aan dhahay jilayaasha Hindiya, waxa uu aad u taageeraa jilayaal uu ka mid yahay Amitabh Bachchan, sidoo kale Rana Dagubadi. dhanka hablahana wuxuu aad u taageeraa gabdhaha koonfurta Hindiya caanka ah kuwa oo kale ah Anushka Shetty iyo sidoo kale Kajal Agarwal. markaan eegno jilaagan waxa uu aad u jecel yahay inuu u dalxiiso dhankaasi isku taga Imaaraadka Carabta. ayuu aad u jecel yahay inuu u dalxiisto oo maalmaha nasiinada inuu xag waqti ku soo qaato ayuu aad u jecel yahay saaxiibayaal. markaan eegno jilaagan iyo noloshiisa khaaska ahna waxaa leeyahay jilaagan waa doob oo weli ma uusan guursan, laakiin waxa xiriir jecel la soo wadaagay gabdho ay ka mid yihiin ama gabar lagu magacaabo Priya Anandi. sanadii 2014 ay gabadhaasi ishukaansan jireen, markii dambe way kala hareen. hadda laakiin waxay jecel wadaagyihiin ama xiriir ay leeyihiin gabar lagu magacaabo Janani Iyer oo iyadana ka mid ah jilayaasha ama gabdhaha dhankaasi koonfurta Hindiya aflaamteeda wax ka sameeysa saaxiibayaal. markaan haddaan eegno jilaagan iyo sidoo kale xaqiiqooyinka laga diiwaangeliyay ilaa iyo dhowr xaqiiqo ayaan eegi doonaa. xaqiiqada ugu horeysan ka eegi doono jilaagan waxa weeyaan waxaa leeyahay jilaagan lagu magacaabo Atharfaa Murali waa actor, sidoo kale aabihii waxa weeyaan actor halka hooyadiisna ay tahay soo saaro oo dhankaasi arrimaha aflaamta ayay dhammaan qoyskiisa ay ka wada shaqeeyaan. marka xataa lagu daro abowgiis wuxuu ka mid yahay dadyoga qoraaga iyo sidoo kale agaasimayaasha soo maray shirkadda Canada Industry oo dhankaasi koonfurta Hindiya aflaamta ka sameysa. sidoo kale waxaa leeyahay jilaagan waxaa leeyahay yaraantiisa ayuu aad u jeclaa inuu noqdo actor iyo sidoo kale modeliste ama dhankaasi modelkana in uu xaggeeda u janjeermo ama uu noqdo mid ka mid ah jooga wax sameeya dhankalena modeliste noqda ayuu jeclaa waagu aadka u yaaraa. sidoo kale xaqiiqooyin kale jilaagan laga diiwaangeliyo waxaa weeyaan waxaa leeyahay ninkan waxa uu fanka Hindiya soo galay asagoo 20 jir ah, waxaana loo dhiibay filim asigoo xilliga da'daas ama da ahaan 20 jir ah. waxaana loo dhiibay filimkiisii ugu horeeyay lagu magacaabo Banana Kathadi oo la daawaday sanadii 2010 saaxiibayaal. sidoo kale waxaa leeyahay jilaagan aflaamtiisa waxaa lagu jecel yahay labada filim ee kala ah Paradise iyo sidoo kale filimka lagu magacaabo Valmiki. xaqiiqooyin kale jilaagan laga diiwaangeliyay haddii aan sii eegno waxaa leeyahay jilaagani waa actor, sidoo kale waa nin dhankaas ganacsigana aad ugu guuleystay. waxa uu leeyahay shirkad lagu magacaabo Kikas Entertainment oo dhankaasi aflaamta shirkad ka shaqeysa ayuu si gaar ah asiga u leeyahay ama shakhsi ahaan uu leeyahay saaxiibayaal. xaqiiqada ugu dambeysa aan idinkala wadaagi doono jilaagan waxa weeyaan waxaa leeyahay jilaagan waxa uu aad u jecel yahay in uu aflaam la sameeyo jilayaal ay ka mid yihiin Rajinikanth ama Jestol waxaad u taqaanay, sidoo kale Rana Dagubadi oo asiguna ah jilaya ama jilaa dhankaasi koonfurta Hindiya caanka ah. waana jilaagii filimkii Bahubali qaybtiisa labaad kaabaladarka ka ahaa. sidoo kale waxa uu dhanka hablaha aad u jecel yahay in uu la shaqeeyo gabdhaha ay ka mid yihiin Kajal Agarwal iyo sidoo kale Anushka Shetty saaxiibayaal. ayuu jecel yahay inuu jilaagan maalin uu shaashada uu la wadaago aflaam la sameeyo saaxiibayaal. haddaba saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaa xogtii xaqiiqooyinkii aan idinkala wadaagay jilaaga da'da yar ee Atharfaa Murali.
fadlan haddii aad ka heshay muuqaalka like inoo saar, dalalka dadka cusubtana subscribe inoo saar, sii share garee oo la wadaag asxaabtaada wixii ayaad qabtana commentigaas inoogu reeb. Waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena.